waa xilli ku adag noloshooda waqtiguna u leeyahay dareen iyo culays gaar ah waana 400 oo qoys oo ku wada jiray xero ku fadhiday dhul ballaaran oo ku taala xaafadda la yiraahdo Rafiya Raaxo laguna magacaabo Tuur Jaalle qof waliba oo ka mid ah qoysaskan waa mashquul rag iyo haween waxay gacanta ku hayaan dhismaha aqalladooda kadib markii ay ka soo kalif gureen xeradii hore ay ku wada noolaayeen waxaana ka saaray milkiilayaashii dhulkaasi oo u baahday inay danahooda gaarka ku qabsadaan himilada oo kulul dhulka oo adag marnaba ma hakin himilada dadkan oo aan haysan caawa meel ay ku hoydaan waa hooyo uur leh iyo aabba daalan oo aan maanta magaalada u quutraadin kuna howlan bal inuu reerka hooy u helo magacayga waxa la yiraahdaa Yuusuf Ali Yuusuf Yuusuf maxaad qabanaysaa hadda maanta waxaan dhisayaa buush ayaa meeshan ku dhisayaa meeshii hore aan deganina waan soo barakacnay buushkina maanta saddex buush aan dhisaynaa ilmahayna qaaj ay ku jiraan dhaxan baan wada fadhiyaan maanta ma oranayo magaaladan aadaya waa soo shaqaysanaa ilmaha bariiska soo dhicnaa ma oranayo buushkii waxay dhisan male ilmihii banaankaas ay joogaan saas aaweed ay kalaftay in maanta saddex ay tahay qaajida buushkii aan ku dhiso aadanta ay kalaftay hadan ilaa hadda hadeertaan buushkasan ayaan dhistaalkiis ku jirnaa walaalayaal waxaan codsanaynaa oo ayadaha waxaan codsanaynaa inay noo gargaaraan oo biyo noo keenaan oo cunto noo keenaan ayaan ka barinaynaa maanta haddii oo bini'aadan lama jirto ma garaste ha ahaataan hadeer dowladaha iyo ayadaha qaranka waxaan ka rabnaa inay soo gaaraan maanta dhibaatada aan ku jirno oo barka aan ku jirno maanta qaajo meeshan aan ugu joognaa dhistaal ugu waxayna walaalayaal taasaan codsanaynaa ayadaha soo barakacay shabeelaha hoosaan ku soo barakacay qaastaan meel loo yaqaano buulamareer la yiraahdo ku soo barakacay oo zoonaha marka meel ka shisheeyay way meeshan ka soo kacay erada muddo waxaan joogaa ilaa 4 sano joogaa imisa carruur ayaad leedahay 3 carruur baan leeyahay laakiin hooyada oo qof xaamilo ah waxay tabaysaa inay garab u baahan tahay waxa dareemay buushan dhisaan barakacay dhibaan qabaa waa dhibaataysanahay waxaan u baahanahay inaa hay'adda ii soo gargaarto oo dhibka aan qabo iga kaalmayso baraan baan fadhiyaa waxaan u baahanahay inaa leekeeno teendo leekeeno maacuun waa dhibaataysanan waxaana ka imaaday meel la dhahay buulo mareer 4 aruur aan haystaa ilmihii waxa u mahay odagii guriga ima dhis kara anigii ma shaqeyn kar lama naflaan ah waxaan u baahay hay'adda inay ii soo gargaarto si degdeg iga soo gaarto halka ay ku soo guureen qoysaskan waa dhulka sareeya qof kastana wuxuu ku qanacsan yahay booska ku soo aaday ee buushka uu ka dhisanayo kuma aanan arag goobtaasi teendooyin ay haystaan qoysaskaasi inkastoo ay qaarkood haween aad u taagdaran ay dushooda ku soo qaadayeen agabkii guriga yaalay iyo waxa uu ka samaysnaa walaal baa iska xanuunsanahay gaajan ku shaqaysanoonan waxaan cunana ma haasano maxaad sidaada hadda qashanan sida oo buushka aan ku dhisan raw awoodna ma hay buushkeena oo ma haasto dibkaas jiro walaal kaga duwan tahay dadka kale dadku waa kaliitaan rifeetan qaatide qaar ka mid ah dadkan ayaa ku guuleystay muddo 3 maalmood ah inay ku dhistaan aqalladooda walow ay dulsaar ku yihiin qoysas kale walaalo gurigan dulsaar ayaan ku ahay qof ayaan ku dulsaar ku ahay oo ku soo kordhacay ilaa hadda iminka meel aan haysto ma jirto aan ku hooydo carruurna waan haystaa 2 daood ayaan haystaa aabahooda magaalka ayuu jiraa bariis adoo inuu soo raadinayaa xagee markaaga hore ka timid adiga markayga xamar ayaan ka soo qaxay waa ka degmada xamar ayaan ka soo qaxay gaar ahaan degmada Siinaay ilaa iyo imisad marka halkan ay degan tahay ilaa inta waxaan joogaa 2 sano jooga aniga markuu ugu horeyso meel aad barakac ku joogto aad ka barakacda miyaa maxaa dareemaysaa markaa wallaahi waxaa dareemayaa meel aan ku hooydo ma haysto hooy ayaan u baahnayn maacuun ayaan u baahnayn weel aan maanta wax ku karsado ma haysto guri aan ku hooydo ma haysto islaan ayaa ilaahay ii baxshay oo gurigeeda aan la joogaa marka waxaa u baahnahay hadda inay wax inoo waxeeyaan dhismooyinka qaarkood oo aan ka dareemay inay gaagaaban yihiin marka aan gudaha u galayay ayaan la sheekaystay qoysaskii ku noolaa waxaan ka mid ahay kaamkan Rafiya Raaxo waxaan dadkii ka soo barakacay maamulka Soomaaliya kilarka shanaad muddo waxaan deganay 8 sano Boosaaso waxaan ku haystaa 6 carruur ah nolol maalmeedku iska helo iska ximaalanaa bariga hore waxaan heli jiray raashinkiina hadeer ma helo
maxaa weeye waa iska soo xamalashaan ku noolahay teendha ma haysano waa markii shanaad in soo gurro marbaaxa bogcada dadleeyin ka soo gurro mid kale dana soo degno nolol micnihii iska dayacan baan ku jiraa laakiin waxa weeye iyo qaxooti mar walba ah anagoo soo qaxnay haddana sii qaxnay haddeerna aan sal iyo hoy mid aan haysan dadku waxay helaan qaxootiyada kale gargaar bay helaan guryo heleen teendhooyin bay heleen annagu midna ma helo waxaanu ka codsanaynaa dowladda Puntland hay'adaha caalamiga علم ودينته جوانيدا كل إني نلسو جاران قرقال دقدقة. يا حتى كورجان كل دقنا كورجان وحيل دقنا أنا جاي عرور تدي أضاقيقة. وحنا هاد تستيقف. waa dad ay kulmisay daruufta oo markoodii hore ka kaliimi deegaano kala dabeecada ah wayna isfahmayaan ayagoo lahjada kala duwan ku hadlaya waana dad gabi ahaan Soomaali ah oo la liita saameynta colaadaha iyo abaaraha la haray gobollo badan oo Soomaaliya kamid ah iyo dalalka jaarka qof waliba waxa uu TV-ga ETN ugu soo gudbiyay dhibta uu dareemayo hadba sida u sahlan ee uga warbixin karo naftiisa Maryam Macalin Xasan la dhahayo oo eelay aha buur ibaydhow ku kooy oo go'hootanta ka aha meel asxaabtani buriidi nafna hayd nolol budle ha ka weydiini magangeliya ka weydiini badbaada ka weydiini oo hadda boosaase dhibaato dhatiye sashag meelod yanahani buri oo meel ingilihay hadda hoogna kaamka ingilihay hadda maysin ko osdaane dawladda sharaf kale maysin ko osdaane ina unu dantaan nin oo fidan gogol ma haysin dheenta ma haysin musqulka haaraan ma qobn awlaadan banka guudooya un banka ka kaadiyoyn musqul ma haysin dhaxagan dili may una hadda geegan oo buush amal onayto gura amal unan karoodayne walga daafid la karaabay onayto budlen on haska fardiidi kaasa guri ka dhisdoyn dheenta ma haysin walaalayaal may sin ko sidaan dad masaakinga en oo habarakahi hadda may nin oo wal nin qobaasana ma ma haysin gogol ma haysin ku beerta ma haysin dhaangan dili binaanku dharaaragna ila oo ila shalay maanta kilisad anta may la areeyo binaanka يفضون أنت قهوتك أنا جبهتك أنا دعها دحفدينا والنين قبضة دولة شرف كله بودلين حيدي أنا يعني ما يلاري وسدي وقت الدنيا أنت أنا حيت أولادي جق صدقتك قارنين قادنا ولا نين ويدين أو ما يلاري وس أبادي دالي كشين إني بنا والنور الكلمة جرت قاجد أماني هم قرينا هاي جوجل دورينا هايت ما يلاري وس أنت ما هاي سنة مسكول ما هاي سنة حد ما خفي راحة قبرت العراو ديرات مرة عرب برا قبرت أصيا معنا أو ما يلاريوسو هرجوجنين أت ولا ليالو أنا ونين قبضة يعني أنا تعبانة أنا قاعدين كابسد أديك يا كلاسو بركعي يا هل كان كل خوي سحان إمسك سحان وحن خوابنا هاي قبر لنا هاي سهرو مؤي ويل لنا هاي عبد أبوكر مودي ويل لنا هاي إبراهيم حسين قبر لنا هاي هوني تواك قبر لنا هاي فاطمة قبر لنا هاي خديجة سلقي قبر لنا هاي يعني مرعد فرتون قبر لنا هاي مركا markii ugu horeyso meeshan ka guura lidan dhahay ahayd miya mise dhowr meelood ka soo guurtay goor maxaan ku soo guurnay boosaas dhaxdeeda waxaan ku soo guurnay 5 meelood aan anaga soo hay'adaha samafalka maamulka iyo taageerada shacabka waxay ahaayeen halbeega uu ku socday ereyada cabashada ah ee ka imaanayay dadkan halkan waxa isugu soo baxay dadweyne soo barakacay moogta dadweynaha soo barakacay waxaan u bandhigaynaa caalanka dawladda wadaadada waxgaradka iyo hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga moogta dadkana arkaysid waxay soo barakaceen halkaas deganaayeen ma sha Allah way iskaga noolaayeen ummadii lahayd baa dhulku waxay tir looga kaca moogta dadnidii minanka iga soo bax war kale ma leh moogta waxa qof walba marka waxaan ugu kaliftay inaan saa u soo guuro wax toondooyina ma hayno wax agaba ma hayno dawladda waxaan ka codsanaynaa iyo hay'adaha caalamiga iyo NGO-yada iyo wadaadada inay caalanka la soo gaaraan dadka gurma degdeg moogta
sidaa iyadoo ay tahay waxaan halkan hadda maanta maasha allah aan maaragtay na haysta oo dadka iyaga dhibka haysta sababtoo raashin ma qaataan raashinkii waa ka go'ay haddii aan lagu teendhooyin ma leh adab kale oo hadda meesha u yaal ma jiraanin waxaan hadda meesha hoganaya inta maqanba waa dadweynihii moogtay waa arkaysaan qoryahan 3 maalmood baa hawshaan socotay moogtay dadkii waxna halkaas u barakaceen waxna waa arkaysaan waxay ku fuftaan wax kale waa waayeen halkaas taagan yihiin moogtay marka waxaan doonaynaa dadweynaha waxaan ka codsanaynaa caalamka waxaan ka codsanaynaa wadaadada waxaan ka codsanaynaa dawladda waxaan ka codsanaynaa gumtooraha gobolka bari magaalada hay'adaha inay nala soo gaaraan gurmad degdega oo dadkaas gurmadka xalay kuwan dabshidan been ku sheegi maayo moogtay habeen hore kuwan dabshidan moogtay marka caalamka waxaan kala hadlaynaa in dadkaas dad dhibaataysan yihiin anigoo ku hadlaaya codka xaafadayda anigoo ah gudoomiyaha Tuurjaale Rafi Raaxo misna ah gudiga sare oo qaxootiga 24 kaaman kuwa isku mid laakiin saaka anaga waxaan loo dheer barakaca loo dheer moogtay waa garsoma baanka waxaan loo dheer barakaca marka waxaan ka doonaynaa dadweynaha dawladda hay'adaha meel walba caalamka kuwa dibad jira kuwa dal joogaba inay maanta arkaan dhibaatadayada oo aan caloos soo saaray waxa meesha hoganay waa maatadii way moogtay kuwa hadda wali jiifjiifo saacada gaajo la fadhiyo moogtay marka biyo male hantaas DRC noo keentay iyada hadda waxaan doonaa wiishin aan ku soo qaadno moogtay oo biyana male moogtay marka waxaan ka caalamka waxaan ka cabsanaynaa dadkaas soo barakacay in lala soo gaaro gurmad degdega anigoo ku hadlaaya codka xaafadayda anigoo gudoomiyaha Tuurjaale Rafi Raaxa misla gudiga sare ee qaxootiga ah waxaan ka calansanaynaa caalamka in qaxootiyaashu dhibka wada haystaan maanta hadda laakiin anagu waxaan dheeray barakacaan leenahay inta kale waxaan nin walbiis iskaga harsanaya gurub iskaga jira meel buu iskaga jira waxaan dhamaan codogsanayna in arintaas la eego oo gudda caalami loo soo saaro oo la eego oo si naxariis leh arinta loo baaro moogtay carruurta ku nool kaamka markoodii hore waxay haysteen waxbarasho laakiin haatan waa ay ka soo fogaadeen goobtoodii waxbarashada waa mid ka mid ah haweenka ku mashquulsan ganacsi yaryar oo ay nolosha qoyska ay ku maareynayso waxayna sambuus iyo bur ay ku dubaysaa meel u dhow hoygeeda oo aan weli dhammaystirnayn ma jiraan xadgudubyo ama caqabado ay kala kulmeen qoysaskan xaafadda ay ku soo biireen waxaana caawimaya qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadda oo ka aaminsan dadkani barakacyaasha ah walaalahood dhibaataysan qoysas badan ayaa dab shidan muddo 2 maalmood ah xaqiiqduna waxay tahay inay dadkani yihiin kuwa aan helin xuquuqdoodii oo dhammaystiran halkani waa kaamka Rafi Raaxo oo ay ka guurayaan qaar badan oo kamid ah qoysaskii in badan ku noolaa waxa la soo dirsay caqabado fara badan wixii ka dambeeyay markii la soo saaray ama ay kala kulmeen milkilihii booska inay uga baxaan goobta waa nolol adag oo in badan la soo dirisa dadka ku nool xiriyaha caynkan oo kala ah waxaana inta badan ay u baahdaan taageero kaga timaada qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa iminka ka muuqanaya goobtan qaar ka mid ah agabkii guryaha u yaalay oo ay u baahan yihiin inay u qaataan goobo kale oo aan la garan karin halka ay noqon karto in badan qoysaskan waxay isugu jiraan kuwa tabaalaysan oo rag iyo dumar intuba isugu laban waxa kale oo jira qaar kale oo ubad u badan isla markaana ay haysato nafaqa darri bahsan way qaranimada hano bulshooy hadiya goor heega noqo bulshooy qaranimada hano bulshooy hadiya goor heega way qaranimada hano bulshooy hadiya goor heega noqo bulshooy qaranimada kaamka Tawakal waxa uu ka mid yahay 24 kaam ay ku jiraan dad soo barakacay ee ku yaala xarunta dhaqaalaha Puntland in ka badan 1,000 qoys ayaa ku nool waxayna isku diyaarinayaan inay dhulka baneeyaan kadib amar uu horay u siiyay maamulkii hore ee degmada Boosaaso oo u ballan qaaday meel ay degaan in muddo ayay ku noolaayeen halkan intooda badanna waxay qoysaskani ka yimaadeen deegaanka Qallaafe ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia
karoon sheekh xasan oo ah gudoomiyaha Tawakal waa hoyga ay ka degan tahay kaamka iyadoo shaqo maalmeedkeeda ku jirta ayaan la kulmay markii aan booqday. wallaahi qoysas tirada ka badan baanahay dad yar ma nihin dad ciyaar ku guuri karana maanta ma nihin haddii maanta dowladda hay'adaha kulli iska kaashanayaan wixii xagga biyaha masquulihii iskuulkii dawladda ku roonyahay goobtii caafimaadka kullina laga kaashado oo haddana meesha ay ammaankeeda fiican tahay annaga koley meel waxaan ka nimid haddaba ay xabadda ka dhacayso meel walbana ilaaha joogo annagu waxaan iska jeclaan leenahay intiina noo dhilaya habeen walba meeshaan ka kaca meel markaas dowladda aynu ogtahay hay'addan aynu ogtahay inaan tagno arrintaas waxaa noo soo bandhigay dowladda haddaan rabnaa inaan ka wada hadalno doo allah idmo 1,000 iyo waxaan nahay 150 balac guri dhul weyn baan ku fadhinaa xaggana waxaa naga soo celinayo 100 buush xaggana waxaa naga soo celinayo waadiga elboorka xaggana waxaa naga soo celinayo jidka elboorka xaggana xeebtaa naga soo celinayso xeradan Tawakal waxaan deganahay 6 sano yaan deganahay aasaasan tahay. xeradan oo ku taala dhul xibeedka magaalada Boosaaso waxaa ka howlgala BL dadweynaha kaamka ay isticmaalaan waxay sidoo kale leedahay xerada dukaamo iyo goobo ganacsi oo ay leeyihiin barakacayaasha. muuqaalka guud ee kaamka Tawakal ayaa ka marqaati kacaya inay dad badani ku jiraan xeradaasi. hadalhaynta iyo iswaraysiga dadka ku nool kaamka Tawakal ayaa u badan sheekooyin dareen hadal ah. fanaanka xerada Tawakal ayaa nasiib wanaag la kulmay. artabartood wixii darayaane tolweeno waani tusaaya artabartood wixii darayaane tolweeno waani tusaaya faraxo walaalow gacalaniyo maanta horto murugada nagu weyn aad iyo aad anaga arqadaha ugu waaweyn oo nasoo mutaystay xalay ilaa caawa alla midabta koorsanay saxawniyo waani la guurinaa la yiri marka guurimaadaan anaga wana la guurinaa nala dhahay maskax ahaantaada intee nala geyn doonaa intee digad doonaa intee nala geyn doonaa magaalada man laga fogeyn doonaa ma hoosteeda nala geyn doonaa meesheeda ma nala deyn doonaa maxaa adiga aragta ahaantaada ay kula muuqataa saxaw aad is dhihi lahayd wallahi taabaan la yaabana ilaa hadeertaan fikirkeeda si aan dhaano macna caruurteeni iyo wixii oo dhan oo hadana meeshii noo wada joogaan oo macna hadeertaan meel oo la wada degan yahay oo dad ay ka dhow yihiin aan ahayn meesha la sheegay sida oo macnaha noo muuqato oo deegaan cusub oo hadeertaan la degayo marka sideedaba dhibkeeda way leedahay waa ognahay dhibkeeda inay leedahay maadaama aan naf ahaanteena inta aan lagu bartiyo suuqii adeegayni xoogsada maadaama aan nahay oo suuqa anaga oo xoogsada aan ka nahay oo xoogsada oo nahay oo magaalada inteena bariiska ka soo dhacsan jirnay ilmeena oo soo dhacsanayna oo magaaladiina ay noo dhaweeday haddii inta laga fogo kuma sidii xamaashii xabsiga gadaashiisa amba baanaraamo dhulkaas ka xagga hadina laga masalada eriga hadina la geeyo bariiska seebaan oo soo dhacsan lahayn nabadgelyo aan ku helay lahayn ilmahayna hoygii ay geeyeen deegaankooda joogayna haddii wana la guuriyaa nala yiraahdo meesha nala geeyo waxaan u baahanahay salaad markii la aadaamo meelan ku tukanaan toobina suuliyaan toobina dugsiyaan toobina iskoolaan toobina ilmihi aan geysano oo meel dayacan haddii nala geeyo seeba macnaa isleedahay meelahaas marka waa tagaynaa nala dhoo aan ku degno seeba wax nagu hagaagi karaan wallahi waa taa horta waa mid dhibkeeda leh oo ilaa hadeertaan aan la tacabsanaa marka aan muujino ka bixi karnaa isdheena seeba ugu bixi karnaa saxaabada kulli waxay u taalaa gobolka Puntland aan maanta aan ku soo roornay mise aan ku soo cararnay oo aan u nahay maganta kulli ayaga yaqaano kulli sidii macnaa xaaladooda ee la mudan tahay marka si ahaan haddaan isfiirino maxaa aan codsi camal anaga aan jeesan karnaa kulli waxa codsi ahaan aan jeesan karnaa in meesheena noola daayo aan iska dignaano sida hadeertaan barakac mar walba haddaan barakacno dhibkeeda leedahay oo waxbaan naga go'ayo oo guriyay waa guurinaynaa hadda aan dhahna baakooyinkii aan noo guursamayna haddana koow faqfaqid iyo balaayo ay nagu qabanayso haddana kharash kale aan kusii guurno meel aan kusii aadno meel ku aadno anta waa tagaynaa isdhehina aan si lahayn haddii meesha inta oodii waa noo qaadnaysa la dhaho baawar waxaan bees ku saaran oo na haysanin marka dowladda iyo hay-adaha meesha oo noo joogo maxaan ka codsan lahayn
kulli waxaan ka codsan lahaan in ay nakigaan haddii ay noqonayso meel dad ay ka dhow yihiin mise aan ka weeshano mise aan tuugo aan lahayn sida macnaa caruurteena ay ku nabad galaan xaasaskeena oo macnaa annaga wax aan ku helnaho guri ilaahay kuma darnaaday macnaa iskooleedkii dugsidii suulidii sidii nabadgelyada ammaanka marka waa ka haddana waxaan ku dhawaaqayaa weliba heestii hore aan u sameeyey ayaan ku dhawaaqayaa bal noogu dhawaaq bal heesta aan dhegeysan tabakaal tolweyna aad degane waa isku tagaan istaaguleeyaane tabakaal tolweyna aad degane waa isku tagaan waa istaaguleeyaane artabartood wixii daraayaane tolweynu waani tusaaya artabartood wixii daraayaane tolweynu waani tusaaya tabakaal tolweyna aad degane waa isku tagaa istaaguleeyaane tabakaal tolweyna aad degane waa isku tagaa istaaguleeyaane artabartood wixii daraayaane tolweynu waani tusaaya aniga intaasaan ku soo dhawey lahay maadaama ay noo imaaday ciida ATM-ka si walba oo ay haatan tahay nolosha barakacayaasha iyo xaalka qaxootiga haddana kuwooda ku nool Puntland waxay haystaan amni iyo kalsooni nabadeed taasoo ah arrinta ugu weyn ay u soo raadsadeen magaalooyinka Puntland haba yaraatee kaalmada ay ka helaan hay'adaha samafalka haddana ma aha dad aan laga warhayn sida qabsata barakacayaasha la midka ah ee u nolol raadsaday meelo kale oo Soomaaliya ka mid ah dadyow Soomaaliyeed diriri faa'iido ma leh muwaadin waliba oo Soomaaliyeed oo dareen wadaninimo siiyay macluumaadka uu xambaarsanaa barnaamijkan ha kaashado garaadkiisa iyo aqoontiisa oo ha isku dayo inuu maslaxadeeda cabiro sida qoysaskan iyo kuwa la midka ah uu uga harayo magaca barakacayaal caruurta ku nool marxaladan maxaan ka filnaa mustaqbalka maxaad ugu yeeri lahayd waxa ay Soomaalida u dagilaadahay fikirkaaga iyo talooyinkaaga waa muhiim ee fadlan ku soo dir ciwaankan muuqaalka bulshada@gmail.com dadyow Soomaaliyeed diriri faa'iido ma leh